بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة الموضوع عاوة وموضوع أنا نحريف كوهين walaaladu waxay soo qoreen inaan ka hadlo التاجر المسلم المعاصر فرص والتحديات markaa taajirka muslimka ah ee nool casri الxadiiث ama wakhtiga kan fursada uu haysto iyo taxadiyaadka challengeska caqabadaha dhibaatooyinka hortaagan waxay ahayd ragga culamadana tujaartana in loo dhiibo mowduuca kan iyaga malaa furaska jirana garan lahaa taxadiyaadka jirana garan lahaa laakiin haddaan si guud un wax u tilmaamo waxyaaba ay culammadii iqtisaadka iyo tijaarada idinka warramayay ay sheegeen wax ka midun haddaan ku celiyo ugu horrayn waxaynu ilaahay kitaabkiisa ku aragnaa sida aayaddan dusheeda ku qoran inay kasab xalaala tijaaradu tahy wa axalla allaahu albayca baa ilaahay tilmaamay ilaahay wuxuu xalaaleeyey beyca waxgadista iyo waxgadashada albeyc waashiraa waa laba lafdiyo labada macno ee iska soo horjeedaba qaadan kara ilaahay waxgadista iyo waxgadashadaba waa xalaaleeyey baa la yidhi idan cumuuman inay xalaal tahay baynu ognahay waxaa ilaahay ku tilmaamaya war salaada markaa dhammaysataan fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illaah dhulka ilaahay ku foofa oo ilaahay arsaaqdiisa raadiya wa minhaa waxaa la raadinayana dee tijaarada xalaashaabaa ka mid ah aayad kale ilaahay wuxuu leeyay famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqih wa ilayhi nushuur waxaa kuugu filan imaam alqurطubi wuxuu leeyahy raxmat ullaahi calayhi markuu aayadda tan fasirayo ina rabbaka yaclamu annaka taquumu adnaa min huluhay اlleyli warisfahu wa huluثah wa طaa'ifatu min aladiina macak والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله مسلمين تمركي اللي قفوا ديدية صلاة الليل كي واجب كاهيد النبي عليه الصلاة والسلام ينتي لسعتبا ليدي وكعسان هبين كاينتي سيبادنايد laakiin rabbi subxaanahu wa tacaala waa idiin fudaydiyey baa la yidhi ee wixii idiin fududaada qur-aanka akhriya rabbi wuxuu og yahay inay idinka mid yihiin dad buka iyo wa aakharuuna yadribuuna fi lardi yabtaguuna min fadli illaahi wa aakharuuna yuqaatiluuna fii sabiili illah iyo kuwa dhulka soconayo xoogsanaya yacni tijaarad bay culammadu ku tilmaamaan iyo kuwa ilaahay dartii u dagaalamaya إمام القرطبي رحمة الله عليه وحليه سوى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه وعياله والإحسان والإفضال وحا آيات كان الله كسي ميبولي درجة كوي جهاتمي يكوي حكسني مال حلال سو حكسني سي نفتو دي عرورتو دبو قوديان idan labada kooxood baa isku aayad qura lagu sheegay sheegitaankaasi ama kulmi ka la kulmiyey waxay daliil u tahay buu yidhi calaa anna kasbu lmaali bimansilati aljihaad liannahu jamacahu maca aljihaadi fii sabiili illah waa ra'yigii imaam alqurطubi raxmat ullaahi calayh arrimahaasi waxay tilmaamayaan markaa sida tijaarada ay xalaal u tahay islaamkuna uu u soo dhowaynayo tijaaradana waxay ka mid tahay acmaasha xornimadu la socoto oo inta badan qofku markuu tijaaro ka shaqeeyo waa amiiru nafsihi inta badan qof cidu shaqeeya uma badna nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiidka tirmidi iyo ibnu maaja warinayaan waxa uu ku tilmaamayaa attaajir alamiin alsaduuq almuslim مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة حديث كان إمام الألباني واجه رو ضعيفين شري لكن كتبتي سي دنبه سيدا الصحيحة
targhiibka iyo uu ku tasxiixinaya xadiidkani wuxuu tilmaamayaa inuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam taajirka qofka baayac mushtarka ah ee amiinka ah aan wax khiyaamaynin ee saadiqa ah cuhuud iyo ballamad iyo kontaraagyadu galo ka run sheega ee muslimka ah buu nebigu yidhi aakhire wuxuu macooda yahay annebiyiina waasidiiqiina washuhadaa waxaa aakhire lala soo xaadirinayaa dee gruubka muslimka hoggaamiya oo nebiyadii iyo sidiiqiintii iyo shuhadadii buu maalinta qiyaame la soo xaadirayaa buu xadiiskaasi tilmaamaya markaynu markaa guud ahaan sidaa u eegno tijaaradu shareecada islaamiga waa wax ku xalaala oo fiican oo qofka muslimkii uu xorriyaddiisa ku samaysan karo ku haysan karo oo ilaahayna loogu dhowaado haddii la waafajiyo sharcigaa la soo dejiyey su-aasha marka aniga lai soo diray waxay tahay furaska iyo taxadiyaadku maxay yihiin jansiska wakhtiga kan muslimka mucaasirka ah ee taajirka ay u haysto iyo taxadiyaadka challengeska hortaagan ee ka hor iman kara haddaynu wax furaska ka mida ku horrayno furaska waxaa ka mid ah waxay dhahdeen tijaarada ama baayic mushtarku waa information waa macluumaad uu qofku hayo qofba qofku ka macluumad daqiiqsan yahay ama ka macluumaad fiican yahay tijaaradiisi way ka fiicnaanaysaa oo waxay leeyihin informationkuma waa macluuma waa information waa inaad garanayso haddaad sokor hayso sokorta meesha looga baahan yahay meesha ay ku jaban tahay waxa lagu soo qaadaya halka la marinaya waa macluumaad macluumaadka haddaad hesho waxay leeyihiin waxbaad samayn karaysaa marka tijaaradu wakhtigan ama casrigan aynu joogo casrigii hore macluumo saad ku heshaa way adkayd dee qof safray oo wax soo indhaindheeyey oo soo wareegay oo meelo badan soo arkay ayuunbaa warbixin soo helayay ama casriga kan dee yusri lmacluumaat bay yidhaahdaan waxaabay yidhahdaan waa information society waa bulshadii macluumaadka intaynan casrigaba eegin soomaalida maxaa had iyo goor tijaaradooda dhulkan ay ugu fiican tahay ama loo leeyahay soomaalidu waa tijaar fiican oo kan waa open society waxbaanay kala qarsanin warkaynu isku akhrinaa halkaa shidaal baa looga baahan yahay timir baa laga rabaa marka wixii markaynu isku akhrino dee waa wadaynaa marka waxa aynu dadka kale kaga gedisanna wuxuu yahay open society baynu ahayn dad macluumaadka isa siiya waan isku masuugina aada isugu bixiya macluumaadka jira taasaa waxay fudaydisay in tujaar badan oo soomaaliyeed ama dad badan oo waxgadaya wax iibinaya inay soo bixi karaan open society-geenna markaynu ka tagno casriganina waa casri almacluumaat waa casrigii informationka oo dee gurigaaga adigoo fadhiyaad netka gelaysaa waxaad u baahantahay dunida meeshuu yaallaad helaysaa qiimayowgu kala leeyaad helaysaa waxaa yacni dunida informationka yaalloo dhan haddii uunaad tahay qof farsamada wax loo baadho yaqaana how to search farsamada wax loo baadho qof yaqaana haddaad tahay dunida warkeedoo dhammi halkaad ku helaysaa waa mar labaad waa casrulitisaalaat bay yidhaahdaan waa casrigii xidhiidhka oo awal dee haddaabad informationka hesho waxay hayd dee dhowr bilood inaad safarto dayuradaan iyo waxaan dee shalay baabay bilaabmeene markab intaad fuusho 3 bilood uu kula sii socdo oo aad meel kala tagto oo wixii soo qaado inta iminka waxay noqotay itisaalaadkii baa fudud fagas iyo telefagas iyo whatsapp iyo telefoon iyo waxaan la dirayo saad xidhiidh u samayn kartaa ee dadka ula xidhiidhi kartaa information quraad heshay maaha xidhiidh saad u samayn kartaana wuu tiro badan yahay oo ama China ha jooga ama Maraykan ha jooga ama Yurub ha jooga ama Afrika ha jooga email aad dirta iyo whatsapp aad dirta iyo telefoon aad dirta iyo waxaad dirto si fudud ayaad xidhiidhka u samayn kartaa si fudud baad contract u saxiixi kartaa si fudud baa xidhiidh oo dhamma idin dhex mari karaa waxa kaloo casrigan fududaaday bay leeyihiin taxwiilaad lacagta gudbinteedii waadigoo gurigaaga fadhiya maanta ayaad computerkaaga dhexdiisa ama mobilkaaga dhexdiisa aad lacagta ka diraysaa ama mobile money transferkan ha noqdo ama systemyadan bangigeeda intaad accountkaaga gasho aad wax diri karta ha noqoto idan
taxwiilkii lacagtuna qofkaa wax kala gadanaysa inaad lacagta siiso adna alaabta ka qaadataa casriga kan wuu ka fudud yahay bay leeyihin cusuurtii hore waxaa kaloo intaa dheer bay leeyihin waa casri almuwaasalaat waa casrigii bay leeyihiin maraakiib doonyo maxaa la yidhaahdaa dayuurado tareenno gawaadhi wax la saaraana dee awar awr baa la safri jiray oo dee maka iyo shaam ama yeman ayaa dee safarku bil sii jeedi jiray haddana waa instantaneous oo dee muwaasalaadka waxaan filayaaba maanta shirkadda dunida ugu lacagta badan leh inay intan ka shaqayso amazon maxay ka shaqaysaa waxbay iibisaa dadkay gaadhsiisaa meelahooday ku gaadhsiisaa maantana waxaan filayaa ama waa ta koowaad ama waa ta labaad hantida dunida idan waa casri almuwaasalaat oo wixii wax lagu xidhiidhinayay marka xidhiidh oo dhammi ama information ha noqdo ama itisaal aad samaynayso ha noqdo ama taxwiil lacageed ama alaabo oo lagu soo diraya ha noqoto ama muwaasalaadkan waxaan la fuulaya ee la raacaya ha noqoto waxaasoo dhammi waa furas jadiid oo dadku si fudud hadday macluumaadkaasi gartaan sida looga faa'iidaysto uga faa'iidaysan karaan furaskii dadkii hore hayeen se dadkani way dayaceen iyada xagga dambaan kaga warrami furasi dacwa muslimiintii hore qof muslimoo taajira meel tegaya ama labaa tegaya ama saddex baa tegayey oo dadkaba way islaaminayeen innagana 10 kun baa maraykan u duulaya ama yurub u duulayo walaa ta'hiira lahum haddaan iyagaba la furanin waxba wax isbeddela ma samaynayaan marka furaskaasi iyaga dib baan uga hadli doonaa laakiin markaan furasu tijaara sheegno maanta way tiro badan yihiin taxadiyaadku maxay yihiin marka challengeska jira waa maxay kow النظام الاقتصادي العالمي waa challenge waayo waa nidaam ku salaysan ribo iyo usuul badan oo laga yaabo inay sharciga khilaafsantay waa nidaam ku salaysan ama si ay hogaaminayaan dad aan muslim ahayn systemka dunida ee tijaarada dad aan muslim ahayn baa dhisay duruufaadkoodii iyo aragtiyahoodii dhaqaalena way ku saleeyeen marka adiguna waxaa kugu qasab noqonaysa inaad waxooda isticmaasho marka waxaad ku dhex baac mushtaraynaysaa system aan islaami ahayn waa dhib waxaad ku dhex baac mushtaraynaysaa caalamka mucaasirka waxa batay qishka iyo khadaaca iyo xalaashii xaaraanta la isku daray iyo mashaakilkaasina qofka raba inuu xalaal miirad noqdaa siduu qishka uga baxsadaa waa dhib badantay sidaan lagu khiyaamaynin ama account la jabsada ha noqoto ama lacagaan la isu dirayo la isku qalda ha noqoto ama waxa lagaa iibinayo waxaan lagu tusay iyo waxa lagu soo raro kala nooca ha noqoto ama waxay doonaysaa ha noqotee qishku khiyaamadu aad bay iyana u badantay waa challenge khiyaamada iyo khidaacu aad bay u badan yihiin waxa kaloo aad u badan xaaraantu diin ahaan waa wax yar maalan cunnada markaynu tilmaamno cunnada qur-aanku muxuu ku tilmaamay dee ashyaa yaroo la tiriyaa la tilmaamay oo la yidhi kaasina waa xaaraan kaasina waa xaaraan kaasina waa xaaraan xalaashu tiro male markaa wixii soo hadhoo dhamme waa xalaal xaaraantu markaa waa istinaa mayd baa xaaraana dhiig masfuuxa xaaraama khamra xaaraana wixii duu makhlab ama ciddi lahaa ama ku ugaadhsadeen baa xaaraama waxaan la tadkiyeen baa xaaraana waa wax la tiriyey waxa soo hadhayna waxa kale dunida yaalloo dhammina waa xalaal haddaba mashaakilka yaalla wuxuu yihi maadaama ay gacanta ku hayaan oo inta badan masaanicda iyo dadka wax sameeya waxa kale ay dad hayru muslima yihiin xaaraantii yarayd bay saydhsaydhiyeeno wixiiba waa nijaaseeyeen wax badan oo ka mid ah oo maalan ninka reer galbeed ama ninka reer bariba dheh ee warshadaha leh ee wax la cuno wax la cabo wax lagu maydho wax la ismariyo wax la isku cadriyo waxaa samaynaya dawo la cuno waxaa nimanka samaynaya iyaga taargetka ninka saanici waa maxay waa taklifada inuu yareeyo waxa uu soo saarayo
waxa ugu jaban ee taklifo shayga ugu jaban leh inuu isticmaali karo iyo availability التوفر waxaan kala go'aynin oo la waayaynin inuu noqdo مثلا waxyaabahan kaynidka ah ee ku jira daasadaha lagu guro ama dawooyinka ama waxyaabahan la ismarmariyo saliidahan iyo cadaradan iyo waxaan la ismariyo waxaasoo dhan cosmeticska waxaa inta badan additives baa ku jira mawaad qaarkood biyaha iyo waxa kale isku xijinayaan qaarkood jiritaanka waxa dheeraynayaan qaarkood dhadhan u yeelayaan qaarkood wax badanoo waxaa ka mid maalan ama waa alcoholic ama waa fat wax badanoo waxaa ka mid qaarna waa alcoholic waa wax khamro laga sameeyey ama khamro qaarna waa fat waa subag aan laga keenin maxay xalaal waxaa laga yaabaa subaga ugu badan agtooda available inuu doofaar ka yimi waxaa laga yaabaa waxyaabaha qaarkood marka lagaaga warramo waad ka naxaysaa waxaa laga yaabaa brotiinkaadi laga saaray ama ilmo soo dhaco mayda brotiin lagala baxay ama waxaydaan idinku sawiri karin oo tiro badan ayaa ninka saanica ahi u fudud wixii u fudud isagu waxa weeyaan wuxuu markuu wax samaynayo wuxuu ku xisaabtamayaa shaygu inuu rakhiis iyo qiimihiisu jaban yihiin iyo inuu available yahay marka warshadda waa inaanay kala go'in waxay wax ku samaynaysaa availabilitygiisu uu jiraa qiimuhuna inuu hooseeyo waxaan uga dan leeyahay markaa waxaasoo dhammi systemka aan islaamiga ahayn ama nidaamka iqtisaadka ee caalamiga ah ama nidaamka khidaaca iyo qishka tirada badan leh ku dhex jiro ama nidaamka isku qaldaya xalaasha iyo xaaraanta qofka muslimka ee taajirka ee raba inuu baayac mushtareeyaa challenge bay ku tahay taxaddi bay ku tahay marka waxaan leenahay taxadiyaadka koowaad waa taxaddi alxalaali waalxaaraam min altijaara saad u kala sooci doontaa xoolaha xalaasha iyo wax xaaraanta ah wax waa marka laga eego dhankii bayci waxna waa marka laga eego dhankii acyaanta wax waa contractkaad galaysaa waa sax laakiin caynta iyo waxaanaad iibinaysaa najaasaad ma ku jiraan ama ma hagaagsan yahay waa dhan waxna waxa weeyaan qaabkan kontragyada loo gelayo waxa kani ma yahay qaab sharciga waafaqsan suu qofka muslimka ahi tijaaradiisu xalaal u noqon lahayd ee uu xaaraam uga durki lahaa waa taxaddi yaalla waa challenge yaalla ilaahayna subxaanahu wa tacaala dee dunida waa la sii taxaamayaa qof baa xanuun lagu itixaamaa qof baa waxaan lagu itixaamaa maalku waxa la ysku itixaamu ka mid yaysaa qur-aanku inoo tilmaamayo insaankana min طabcihi waxaa ka mid ah inuu xoolaha jecel yahay wainahu lixubi اlkhayri la shadiid watuxibuuna almaala xuban jama wayuطcimuuna الطacaama calaa xubihi miskiina wayatiima waasiira waa insaanku hadduu bixinaya iyo hadduu ururinayo xoolaha min طabcihi waxaa ka mid ah inuu xoolaha jecel yahay oo waa kii nebigu lahaa calayh الsalaatu wasalaam bini aadamka haddii waadi dahaba hadduu leeyahay ama yani labtagaa ثaaniya وثaaliثa low kaana libni aadam waadiyaani min turaab labtagaa ilayhima ثaaliثa walaa yamla jawfa bni aadama ila turaab laba waadoo dahaba ama wax la mid ah haddaad haysato mid saddexaad baad raarin lahayd wax bini aadamka hungurigiisu xad ma leh marka la soo ururinayo marka la bixinayana zakadii iyo sadaqaadkii iyo waxaana waa waxdirat ilanfusu shuxa iyana waa qaab kaloo iyana laynagu itixaamay nafta shaxiixnimada bakhaylnimadu naftu waa iskaga abuurantay wa kaana alinsaanu qatuura waa kii nebigu laha calayh الsalaatu wasalaam yahrumu bnu aadam wayashibu minhu اثnaan bini aadamku wuu gaboobaa labase weli dhallinyarun bay ahaadaan laba dabeeco aad leedo aan gaboobayn baa jira mahmaa caqligaaga iyo waxaaga kaloo dhami gaboobaan alxirsu cala almaal walxirsu cala alcumr xadiiskii saxiixaynka ku yaalla ka warrana saxiixaynku ku yaalleen xoolaha jacaylkooda iyo ilaalintooda iyo cimriga jacaylkiisa iyo ilaalintiisa bini aadamku kama gaboobo labadaa dhallinyaru ka ahaada haddaba waxaynu leenahay taxaddiga kani waa meel laynagu itixaamay waxa qofka muslimkaa saaran inaanu cunin waxaan xalaal ahayn
إلهي قرآن كوحي علماء إلى هذا العمل الصالح وحلقه الرئيسي أكل الطيبات بين هذا إلهي محولي يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم رسوشي وحل يري طيبات كعنا عمل كصوبنا السماء طيبات قال له الرئيسية بيلي قرآن كان إلهي وحين لي حولها دحدينا بالباطل هكوعوننا هنا يتهي مويانه وحن بالله كراه تجارة يسقر اللي تهين مركيتي مالك هي سلطتنا مالك هي سلطتنا الرادين تيسو وحيابا الدين تفسه هذه كمدين ونبي وحده عليه الصلاة والسلام ما الذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه لبيي oo gaajaysan oo ari lagu sii daayay siday u ifsaadiyaan yani say dhibtay geystaan kama dhib badna xirsil mar jacaylka uu qofku uu jecel yahay xoolaha inuu ilaaliyo iyo sharafta siday diinta u yeelaan kursiga ragga raadinaya siyaasadda iyo magaca iyo maamuusku in badan buu diin la'aan dadka badaa oo rag badan oo kuraasida laga fujin waayay حتى الدين تواكو يبسريان كرسي سيو حجيان قال يدد يا مسلم بوا الله يم سي محي كرسي قاو هيان رق بدن تجاريننا حولون اللي هلا حلال حرام حق يدون طبعا كنتي دي سومالدون دقم بايسكلا هدا حق حولها انت كفي يعني مركو هربا ويري داول بقيل انو قادي جري سومها دقا كي باديه سومالده هوري دي جيل قاد بوها جيل ندين المسلمات دارير صدايو اسكلها ان كان ضمنا wuxuu u eg yahay xooluun ma yiin lacagun ma la helaya waxay doonaan ka soo baxaan lacagun ma la helaya labaduba lacag raadinta iyo mansab raadintu diinta qofka way fasaadiyaan buu nabigu leeyahay sida labada yeey ee adhiga lagu sii daayay yeeydu way dhibadan yihiin yeeyda qaarkood xoolaha inay dhaqdhaqaaqa u diidaan oo wada laayaan mooyaane marka hore maba cunaan markay wada dam ka siiyaan kadib bay wax ka cunaan halka libaaxu uu neefku cunayo uu qabtay inta kale aanu dan ka yeelanin marka maalka iyo sultadu asliyan waxay ka mid yihiin waxyaabaha dhibta keena marka waxaan leenahay taxadiga koowaad ee taajirka muslimka ah hortaagani waa siduu xalaal u miiran lahaa siduu wax xalaala uu heli lahaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa yaati cala annaasi zamaanun laa yubaali almar'u maa akhada minhu أمن الحلال أم من الحرام حديث البخاري دتك وقت با كو إيمان دونا دتك أنا يو أبي يلينين حولها ما حلال با لغو صاحلة مسه حرام با يكو صاحلين لا أبي يلينين حولون ميهين ومهمد الطيب وين حكس ديبو كلي وراي واحد كو حكسان سارماني حلال هاي وروحا سواسكا حولون اللي هلو أياكتي سمودان يدين أغنينا آخره وحيابا لبدا السؤالود له وعن مالي منين اكتسبه وفيما انفق لبدا سؤالود له إمام النووي رحمة الله عليه كتاب كيس مجموعة وحلية باب الورع في البيع وغيره واجتناب الشبهات دبا تنوحوا عنوانك وقري وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم إن ربك لبالمرصاد لبدا يضاد بكورتي حلاشنا وعضها سيدو نبيو شاقي حارانتنا وعضها سيدو نبيو شاقي وحيابا ودحيو ددك انتو دا بدني aanay garanayninna waa jiraan waxa aanad garanaynin qofka ka dhowrsada diintiisu dhowray qofka ku dhaca shubahaadkaasi inta badanina wuxuu la mid yahay ninkii seeraha boqorka dacalkeeda xoolaha ku raacay حديث الرواية البخاري ده وحابي لدي فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك نينك اسكاغتا وحا وكلا جروا يا حلاشو دي حاران تودا وحيو عداده دي حق بوغتك يا ابو ومن ترى نينك كودي هذا على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان شبهاتك يا وحا لا قرا نينك انت غور اسكا حابسدا waxay u dhowday kaasi xaaraantana inuu marka dambe xaabiyo marka waxaan leenahay challenge-ka koowaad
وسيدي حلال يا حرام لو كلا سوعي لها ونك تاجركي وحلاله أما عين توحى ويبين يكبع مشترين يها النقطة إنه شيء حلال طهي أما كونتراجية وقال يقابك وحيبين يقابك تجارة والسمين أيوه هالنقطة وحلال إن لقبع مشترين حرام تلقتها هو مشكلة عصرية كم بدنيسة وأنا السببها السيب بدينا وحكم ده نما نسجى أكتيس حلال يا حرام وقوم بوحو أكتو ديالي Chinese أنا إلهي برهم السنين أما مد أهل كتابة أما مد مجوسية أما مد هندوس ددان إلهي رسول تانا رهم السنين بين وحكلا قدرنا إيجانا الصناعة إنه عالم الإسلام دعبتها يسته شيخ الغزالي رحمة الله عليه بوحورة شري هدي الله إلى هذا الدنيا ده وحولوا بهالكاجي كنقو وحن كعب ثقة بابو يقول مسلم كوا ده قاونون لا أركو إلا وحما ما يسوي سنة بوليه وحيا كوهر لها ما تشرو يعني إنه وحما ما ينسى ما ينسى درادد وحي نقطي وحي نكبع مشترين ولما وحي قعن وجود شيران وقعن تكوه يعني ما نسقو حلال يا حرام طونا أنا إيه جايين مركا قابك كونتراج ولا جلسانة ومشكلة عين تأديب سنة ومشكلة تحدي قلبات يعني تلمامة إنه يسوونه وحويان تحدي الجهل الإسلام كده حرية المطلقة الله إله هذا ما شرته هو باع مشترى واقتصاد كدين الله ما يقو واتيقوم كي شعيب الجوها لاقي أن نفعل في أموالنا ما نشاكو لها قوم دم بالجوها لاقي يعني أنا جوا أبي لي مين صلاة ضاد يور كانت شيء يسوع نبي دم بيكوي هذا نسكاه يسوع إذن حرية كاملة واحد دونتيرة سبي سقف كمسلم كي ما هيستو مركا محا حلقة تهنو قف كمسلم كي وحبرته وهي علماء دولي مسلم كأمور دينتي سكمدا واجب كوا لعبادته ولعمله عبادة ديسة يا عمل كيسة بدرات دودنا يا صحانو إلهي أكتود أقبله دي علمه بهي صلاة ميت كتو كرتاون هذول نساونا مسلم قوتو كذا بالليل بس وأنتو كنا يا صلاة واي برنامج ما هي وين برطاه تجارة وحلال واسكت تجارين يا بالله النوعية ندي وين برطاه وحا حلاش هاي وحا حرامتها ولذلك من علماء وحي سوى نقلي أن حديث كان قاركودا يمرون قاليان طلب العلم فريضة على كل مسلم علم قد طلب كيسيون فرل كي يقف كسطو مسلم حديث ابن ماجه ورينيا السيوطي يا الباني يقول هذا سنوات تصحيح سا أحمد يا بيهقي يا النووي يقول هذا سنوات تضعيف سا على كل حال لكن معنيه علماء واسكوها فقسيه حديث كان يوحى تلماميا علم برشدي سقف والبين واجب كيه waxay culimadu yiraahdaan cilmiga halkan maqsuudka ah waxa weeyaan cilmiga qofka ay ku tawaqo uu ku guntamayo cibaadadiisu inay saxdo iyo muaamalaadkiisu inay saxaan sida ogeed qofka taajirka raba inuu baac mushtariya ahkaamul bay'i wa shiraa'i inuu barta waajib ay ku tahay qofka raba inuu baac mushtariya soo salaada maydan barano maydan asixin tijaradana hadda intaanad bilaabin oo inaad barataa maxay ku asaxdaa maxay ku burtaa maxay ku xumaataa maxay ku xalaalowdaa waanaad barataa beeca iyo shiraaga ahkaamtiisa ribada iyo ahkaamteeda si uga fogaado culimadu waxay yiraahdaan masaa'ilkaasi qofka ku dhex jira fardu cayn bay ku noqonaysaa qofka mukallafka ah oo mararka qaarkood aan jahliga loogu cudur daaraynin sadaradeed buu imaam an-nawawi rahmatullahi alayhi fi majmuucihi wuxuu ku leeyahay bay'a iyo nikaaha iyo wixii la mid ah kuwa la nooci asal ahaan waajib maaha hadda u fiirso asal ahaan de markaad halkaas ka joogto waajib kuguma aha inaad guursato waajib kuguma aha inaad wax gado ama wax gadato laakiin marka aad u dhaqaaqdo tiraahdo gabadh baan u baahnay dee waxa waajibaysa markaa inaad maxay inaad gabadh guursato sidii loo guursanay aad mariso waxa la mid ah bay leeyihiin ahkaamta bay'a markaad u dhaqaaqdo إمام الحرمين يا إمام الغزالي غير كود باوحي ليه يتعين على من أراده تعلم كيفيته وشرطه قفكي الربه بيع النكاح إنو السمايو وحكو عينو بيا إنو برطه
kayfiyada iyo shuruuda uu ku asaxayo markaasuu wuxuu yidhi waqiila laa yuqaalu yatacayanu bal yuqaalu yaxrumu liqdaamu calayh waar yatacayanuba lo odhan maayo waxa xaaraama inuu xaggaaba u kaco ilaa iyo waxan garta mooyaane imaamu nawowi wuxuu leeyahy cibaarada dambaa saxiixnimo badan cibaarada sheegaysa waa ka xaaraan inuu waxaaba dhankeeda qabto isagoo aan baranin taasaa saxiixnimo badan oo wadaadada kale warkoodana lagu ta'wiilinayaa buu leeyahy hadday haddaba masaladaas aynu nidhi waa taxaddi innaga dadka tijaareeya ama wax iibiya ama suuqyada jooga akharuhum waa caama casrigii muslimiinta ay xoogga badnaayeen ragga tujaarta ahi waxay yidhahdaan faqiih bay kaxaysan jireen safarka nin faqiiha u raaci jiray oo tijaarada intuu wado iyo intuu soo iibinayo o dhan wuxuu ninkani kontraag gelaya iyo wuxuu samaynayo o dhan la socon jiray casrigeennan dambe dee wadaadka iyo dhaqaalaha waxbaba iskama gelin baynu rumaysannahay soo maaha guurka iyabaaba la qaato dee la odhanayaa wadaad ha la doonee laakiin dhaqaalaha oo wadaad muxuu ka ogyahay bay taagantay sidaa ogeed cumar bnulkhadaab baa waxaa sanad saxiixa sanad xasana lagaga soo guuriyaa imaamu tirmidi baa soo guurinaye laa yabic fii suuqina ilaa man qad tafaqaha fi ddiin inuu yidhi annaga suuqayaga yuu wax ku iibinin nin diinta fahmay mooyaane qof jaahila uma ogoli buu cumar leeyahy inuu tujaarta ku biiro yacni haddaad taajir noqonayso qof waxgadoo wax iibiya axkaamtaa ku saabsan baabka kan si aad xalaal iyo xaaraan u kala garato si aad uga durugto ribe iyo dadkii ilaahay la dagaalamayey soo ma ogin ribada in waxaa la yidhi ilaahay baa dagaal kula jira dee si aad uga baxsato tijaaradaada haddii ilaahay dagaal la galay len guulaysan maysee si aad uga baxsato waxa waajib kugu aynada marka waxaan leenahay taxaddiga koowaad wuxuu ahaa xalaal iyo xaaraan inaynu kala saarno taxaddiga labaadna oo waxaan inaynu aqoon u yeelanoo jahligan ka baxno oo jahli baa waxeennu ku tiro batay taxaddiga saddexaad waa taxaddiga u dhaxeeya cibaadada iyo tijaarada dadku markay lacagta arkaan marar bay noqdaan cabdu dirhami wa diinaar salaad iyo dikri iyo cibaado iyo waxaasoo dhan uu ilaabayo wuu faydan yihi iminkana gaadhaa soo degay gawaadhidanna waan rarayaa kanna waan soo dejinayaa kanna waa cabdu dirhami wa diinaar inuu noqdo noloshiisaba inuu addoon u noqdo xoolaha qofka taajirka ee muslimkaa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamayaa dadka muslimiinta ee noocaasi tijaaradoodu inaanay ilaahay dikrigiisa iyo cibaadadiisa ka mashquulin iyo xaqa alle inuu guto sidaa ogeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illahi wa iqaami الصalaaة wa iitaa'i الzakaati yakhaafuuna yowma tataqallabu fiihi اlquluub wاlabsaar ilahay wuxuu tilmaamayaa rag aanay ka mashquulinin laa tulhiihim aanay ka mashquulinin tijaaro iyo beectoona ilaahay xuskiisa iyo salaada oogisteeda iyo sakada bixinteeda waa rag ka cabsanaya maxay maalinta aakhire qalbiyadu gagadoomayaan idan waxaynu rabnaa qofku taajirna inuu noqdo cibaadadana aanu ka dheeraanin ama masaajidda ka dheeraanin caamada daaye kuwii wadaadada ahaa qayb ka midi markii xoogaa ilaahay xoolaha u furay masaajid ba lagu arki waa meelaha haasuu ku jamjamacsadaa ama salaad ku tukadaa waxaa laga yabaa inu kitaab dambe cid u dhigin waa mashquulsan yahay 24 saacadood sida saxayna waxa weeyaan sidaa ilaahay qur-aan ku tilmaamayo inaad noqoto qof aan tijaaradu iyo baycu ka mashquulin ilaahay qolo iyadoo la canaananayaba waxaa la yidhi waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima qul maa cinda allahi khayrun min allahwi wa min altijaara wallahu khayru raasiqiin saxaabadii la yidhi iyadoo uu nebigu khudbad jimco akhrinayo ayaa safar soo galay iyaga safarku dee biluu mar imanayay ma ahayn wakhtigan iska available-ka ee markaad baxdaba aad beriska soo iibsanayso waxa la cuno mar unbay yimaadaana markaa unbaa dadku uu kala iibsadaa hadhowna suuq dambo badan aad ku noqotaba inaanu jirin baa laga yaabaa dabeetana iyadoo jimcihii la joogaa safarkii soo galay dad badan oo dadkii ka mida baa yaacay ilaahay qur-aan buu soo dejiyey uu kaga warramayo marka hore jimcada haddii la joogo
inay mamnuuc tahay in wax la gadaba salaada jimce imaamka aadaanka dambe marka la aadimo idaanku markuu halkaa fulay assalaamu calaykum la yidhahdo in wax la iibiyaa waa xaaraan inaad wax iibsataana waa xaaraan adiguna wax ha iibsanin oo muaadinka imaamkaas ka sii wadaya war koob shaahay dhiib salaadda kolley waa ka gaari doonaa koobkaasi armu xaaraan noqdaaba waanu fiicnay waayo inaad wax beecsataa beecu markaa ma bannaana qolada tan waxaa lagu canaantay markaa hadday tijaaro arkaan ama lahu infaduu ilayha xaggeeday waa cararayaan macnaheedu waa maxay waxa ammaanan kuwii hore waxa la maagay kuwan dambe saa awgeed baa ilaahay leeya yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumca fascuu ilaa dikri illahi wadaruu lbayc baa ilahay yidhi maalinta jimce haddii salaada laysugu yeedho dikriga ilaahay u socda u carara oo ka taga baa la yidhi maxay beeca ka taga marka waxaan leenahay cala taajiri اlmuslim waxa saaran taxadigaas ah cibaadada iyo tijaarada in laysku wado waanay tijaaradu noqonin wax qofka muslimka ah cibaadada ka fogeeya taxadiyaadka kale waxaa ka mid a taxadiyaad akhlaaqiya oo casrigan dambe tijaarada runtaa ku yaraatay runtu way ku yartay oo nebiguna calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa albayicaani biاlkhiyaari maa lam yatafaraqa fain sadaqa wabayana buurika lahuma fii baycihima yacni waxaa halkana laga wadaa taajirka muslimkii duu khuluq inuu noqdo qof islaamnimadiisii ka muuqato ama gaal la baac mushtaree ama munaafiqiin la baac mushtaree ama mu'miniin la baac mushtaree adigu muslim baad tay aduu aslan muslim baad tay marka waa in dhaqankii islaamiga kaa muuqdaa nebiguna wuxuu leeya alayh isalaatu wasalaam labada wax kala iibsanayaa khiyaar bay leeyihin inta aanay kala tegin yacni waa kala ceshan karaan wax inta aan la kala tegin kow hadday run sheegaan buu nebigu yidhi runta maxaad ka sheegaysaa alaabtaad iibinaysaa lagu weydiiyey wuxuu ku yidhi alaabtani ma yurub ba mise waa indiya indiyaanad haysaa saa tiri waa yurub maye tii yurub weeyaan waa been baad iibinaysaa qofka waad khiyaamaynaysaa waa khidaaca waa khiyaano nebigu wuxuu leeyahay hadday dadku run sheegaan oo caddeeyaan wax dhacay ama quality liita waad ogtay baalkaagu inuu quality liito waasaad leedahay kan war waa jabaan taiwanna waad ka keentay ama meel kalead ka keentay dadkuna magacaas u qiimaysanaya wax ku gadanayay nebigu wuxuu leeyahy markaa hadday run sheegaan oo ay caddeeyaan wixii ceeb jirtay iyo wax kasta ay caddeeyaan markaas baa ilaahay beecooda u barakaynaya ilaahay markaasuu beecaagaasi kuu barakaynaya wain katama hadday qariyaan oo wakadaba been sheegaan baa la yidhi muxiqat barakatu baycihima yamxaqu allahu ribaa baynu xaggaa ku haynay soo maaha yamxaqu allahu riba okay haddii ribada maxqi uu ku dhahay kanna u fiirso wain katama wakadaba muxiqat buu nebigu leeyahy barakatu baycihima baycoodu waa barako beelaya ilaahay baa tirtiraya idan qofka muslimkaa waxaan rabnaa taajirnimadu iyo xoolo raadisku sidqiga iyo birka waa inaanu kaa kaxaynin inaad run sheegto iyo inaad samafasho waa inaanu kaa kaxaynin walidalik buu nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam kaana rajulu yudaayinu الnaasa fakaana yaquulu lifataah nin baa dadka wax daymin jiray dabeetana wiilka shaqaalaha buu wuxuu ku odhan jiray hadduu kuu yimaado qof mucsiri qof dayntii iyo xoolihii uu qaatay ee ku adagtay inuu iska bixiyo tajaawasa canhu iska dhaaf buu odhan jiray lacala allaha an yatajaawasa canna waxaa la arkaa ilaahay haddaynu addoomihiisa u cafino kii waxba waaya in ilaahay innagana ina cafiye ciddaad waxba ka weyda iska cafi nebigu wuxuu yidhi markaasi falaqiya allaha fatajaawaza canhu ilaahay buu la kulmo ilaahay isna dunuubtiisii waa u dhaafay maadaama uu dadka markay caydhoobaan ama kacaan ama khasaaraan uu u fuutin jiray uu ka qallayn jiray isagana waa loo fuutiyo waa laga qalleeyey oo markaasi dembigiisii rabbaa dhaafaya subxaanahu wa tacaala
سأوجد بين لنا تاجر كمسلم كاي وينو ذو خلق نقضة قف ماشة خيامة كترت لكن ولا تخن من خانك أيام ماشة الله أدوغونا خيامة هبلابن سادر أدد بالنبي قوحوا المامية رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى إلهي هو نحرسته أدون متسامحة مركو وحيبين أيوه تتكو دمرية هدو وحيب سنة يانا قرقرتا كان دتك نفتي سوو كينين دتك بربا سوو قرقرتا ما يوقفكو مركا دما يسراوار كان اسكدرونو كاغات أدا نفتي سوو كينين تنموسينين لكن مركا قرقرتا كوبا دي سي نبغو حلا يقفكا مركو وحقادانا يا مركو وحقادا يا وقف دبع سنة هدي ودين عد كدونا يا هدو عد سينا يبنا وياهي سمح كاسي إلهي ونحرست نبي محمد دعينيه عليه الصلاة والسلام وحين لنا مركا تحدي جاء عبادات كي نقفكو أنا تجارتك كحينين تحدي جاء أخلاقية كي إسلامية أديكو أقدت كاد لبع مشترين سيني خيامة وضان أما يبين شيء جيان أما يعني كانوا نقيان أديكو سكتشرين لو خيامين لكن أديكو صادق نقو أديكو نقان كي قفك مسلم كاهي هكام مقدسيد النبي شيء عليه الصلاة والسلام sida ogeed baa waxa xadiidka Tirmidhi ibn Majah oo Albani saxiix ku tilmaamay wuxuu nabigu leeyahay baqiico wax la meel wax la kala iibsanayo nabigu yimi markaasuu yidhi yaa macshara tujaar waa qoladina wax kala gadanaysaa baa la yidhi nabiga xaqiisii bay u soo jeesteen alayhi salaatu wasalaam oo rafa'u a'naaqahum wa absaarahum ilayhi dhankiisa la soo wada jaleecay markaasuu yidhi inna tujaara yub'athuuna yawma alqiyaamati fujjaara إلا من اتقى الله وبر وصدق تجارته باع مشتركة ما لنت قيامه وحلا صوصار يجو فجارة فاجرين مجرمين دنبي ليال بيكو صباح أنا آخر أبو النبي قولي يا الله قربي كوي إلهي كعب صدي حلاشي حرانتك على الصاعي إلهي الذكر سكون نبنا وبر دتك وصم فلي فيعنا وصدق وحي تجارة كرر شيء جروب كاسي وكوا قولي سنة يجوا كصهاريا أما تجارة أنت كلاو حنا بقول المام ينين محي إني فجاريهين فهل لنا وحاول نبغى ينات المام يا لعكت أورورين تيدو إني بحين تيدو نلا صعطة شو حياتك بحضة وانا إلهي الذكر سنة كان مشغول سين الشاقني يقول حلي يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف وارتجاري وحقاد الشضة لغو تربضا إيا الأربع صوغ الشيء واربع صدقه كم يدبال لي صدقة فشوبوه بصدقة يعني سوق يضا إيا لها السنة وميل الدبضن ونبي عليه الصلاة والسلام وحكوت المامي أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها حديث كمسلم نبي يقول حليه نلك إلهي وحوت عليها هي محي مساجده نلك ميلها اللي قلنا عبيها هنا وحاوي ينبالي للصغيرة وحلقوك لقاطه ويا والله بينا يا الدار يا خيامه يا أمان الدر يا وحا صار وحيا اللي محي صغيرة سيدا أوجد أيو النبي عليه الصلاة والسلام إن بدن كدقية لبدن بوال لو قدقي إن غفلك وقود عضو بالحديث كانوا فيرسو والنبي يقول إنك مركو سوق قاليو يرى هذا حديث ابن ماجه الباني حسن كشيغي إنك مركو سوق قاليو يرى هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير انت ويدا انك إذا هذا مركو السوق قليه كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة كن وايمسة ومليون دي في عربي يهرم مليون وحلا يداكم أشرين ألف ويان كن لغرف تيدوا 1 مليون واللي حزيره صحيح كما وحنا بقول إنك مركو السوق قال يا مالنتي تجارة وكسي صعده
intan akhriyaa 1 milyan oo ajara waa loo qorayaa 1 milyan oo sayi'ana waa laga rogayaa gurina jannada looga dhisayaa culimadu waxay yidhaahdaan mawطinkan baa mawطin alghafla oo inta badan dadku lacagta iyo dukaanka iyo xisaabada iyo yarsaqiya fataaxday xasuustaane dikriga ma xasuustaan bay yidhaahdaan yacni waa mawdic aan qofku inta badan waxay yidhahdaan cibaadaadku amaakin alghafla iyo awqaat alghafla iyo kuwaasi cibaadaadku ajarkooda wuu xoogaysmaa waayo qofkana waxay tilmaamaysaa qof ilaahay ku xidhan subxaana wa tacaala inuu yahay markaa qofka markuu suuqa galaya sida tan yidhaahdaa milyan xasanadood na waa loo qorayaa milyan sayi-ana waa laga rogayaa guri janneedna waa loo dhisayaa buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waxa ay tilmaamaysaa meeshaasi dhibaatada badani ka jirto qofku hadduu ilaahay ku xuso inuu yahay qof ilaahay ku xidhan dhanka kalena salmaan alfarisi isagoo mawquufa buu imaamu muslim ka soo wariyey culamada qaarna waaba rafciyaan ayaa wuxuu leeyahy laa takuunanna in istatacت awala man yadkhulu suuq haddaad awooddo ha noqonin ka u horeeyee suuqa gala walaa aakhira man yakhruju minha iyo ka u dambeeya ka soo baxa fainaha macrakatu الshayطaan wa biha yansibu raayatah waa goob dagaal shaydaan weeyaan imaamu nawowi waa wuxuu leeyahay waa macrakatu shayطaan waxa loo yidhi likahrati maa yaqacu fiiha min anwaaci اlbaطili كالغش والخداع والأيمان الخائنة والعقود الفاسدة والنجس والبيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه والصوم على صومه وبخس المكيال والميزان وحاصر ما كان عبو لي سيدا درادت أي الله قلت المامين يتهيبون معركة الشيطان يماشى وعلنك الشيطان كتاكته هذا بقى وهي علماته إلى هذا ka u horreeya ka u dambeeya waxaa looga dan leeyay bay yidhaahdaan haddaad u horraysana hore uga soo bax haddaad mar damba gashaan laakiin ha noqonin marka horena ka u horgala dadka hadhowna ka u dambeeya noqda kaa ha noqonin bay leeyihin dee meeshii la yidhi mashkaakilkaa yaalla haddaad adigu bilow ilaa dhammaad taagnaato miyaad belebeelaysaa markaa haddaad furtana aakhirka marka suuqa la xidhaya inaad ka soo baxdo way dhib badan tahay si awgeed baa waxaa lagu tilmaamayaa inaad saa noqonin idan waxaynu leenahay wakhtigan aynu hadda joogno furas tiro badan baa jira furaskaasi ama macluumaadka ku saabsanaadaan ama muwaasalaadka ku saabsanaadaan ama itisaalaadka ku saabsanaadaan ama taxwiilaadka waa furas yaalla furaska yaalla waxaa kaloo ka mida baynu leenahay التجارة مع الله قبل التجارة مع البشر inaad ilaahay la baayac mushtaraysay inta aanad bini aadamka la baayac mushtarayn bini aadamka meelaha uu u jilicsan yahay qalbigiisa lagu hanto hantida ka mid ah walidaalika nabigu wuxuu tilmaamaya tahaadu taxaabu waxisu hadiyeeya waa maxay waa isjeclaanaysa anbaa yidhaahda qof hadduu kuu samafalo dee qofka laba goor ku seeriyeeye maalinta dambe waxaad odhanaysa wallahi ninkaan nin ragga ka fiicani ma jiro agtaada miyaa lagu soo qaadayaaba ninkaa yacni bini aadamku hantida wuu jilicsan yahay sidaa awgeed ayay tujaartii muslimiintii hore waxay ahaayeen dad ducaat oo fursaddaa tijaarada ay heleen diintooda uga faa'iideynaya lababa way kaga faa'iideynayeen kuwooda culammada ahi dee dadka inay wax u sheegaan laakiin waxaa ka muhiimsan dhaqanka qofka markaad khiyaamayn weydo markaad aamin noqoto wixiisa u ilaaliso markaad run u sheegto si aanu u kadsoomin qararka aad ka ilaaliso marka aad samax noqoto daynta ku lahaato ama daynta ka cafido ama lacagta u dhiibto qalabka u dhiibto tiraahdo soo caddayo hadhow ka ixsaankaa tirada badan leh wuxuu keenayaa dadku inaad dad badan diinta soo gelisaan dadku inay diinta jeclaadaan laakiin taajirka muslimka hadduu dhiig miirata noqdo dadka gobooda u dambeeya cabba taladiisuna ay tahay un dadka wixii jeebkooda ku jira inuu qaato jeebka mooyaane qalbiga dadkaba arkaynin dee waa mid subxaana leh inaad jeebka waxa ku jirana aragto dadkan quluubtooda iyo dunuubtooda iyo alla ka fogaantoodana uu kuuma muuqan weydo waa waxaan fiicnayn tujaartii hore muslimiinta ahayd dhaqankooda xalaal miiradkooda akhlaaqdooda cibaadadooda waxa aynu nidhi waa taxadiga ayay ka run sheegeen dabeetana waddanno dhan baa ku islaamay saa in badan maqashaan
waddannadan Malaysia Indonesia dadkan indha yartee malayga la yidhaahdo indiya qaybo badan oo ka mid ah dee jihaad cidina kuma xoraysan waxaa tegay un dadka tujaarta ee wax iibinaya wax gadaya baac mushtarka ahaa laakiin waxay noqdeen baac mushtar muslim oo maxay xambaarsan risaale xambaarsan maanta muslimiinta tujaartoodu dunidoo dhan waa marayaan dunida halka u dambaysa ilaa halka u horaysa laakiin raadka aynu leenahay wuu yaryahay waayo hamigaas aynan sidinba marka horeba xil diimineed inaynu xambaarsannahay ayaynan ogeyn inaynu safiir nebi maxamed ka nahay calayhi salaatu wasalaam ayaan inoo dhacsanayn haddaba waxaynu leenahay taajirka muslimka ahi waa qof caqiide xambaarsan oo dadka ugu yeedhaya taajirka muslimka ahi waa saaxibu khuluq waa qof akhlaaq islaamiya sida oo dadka ugu yeedhaya oo ammaanadu ka mid taho runtu ka mid tahay oo waxaasoo dhan khiyaamo la-aantu ka mid tahay taajirka muslimkii waa daaci dhaqankiisa iyo xusnu suluukihii uu dadka diinta ugu yeedhayo xataa haddaanu afka nin cilmi la ahayn lisaanulxaalkiisa dhaqankiisaa dadka diinta ugu yeedhaya dee nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya man khashana falaysa mina ninkana khiyaameeya nagama tirsana idan waxaan leenahay taajirka muslimkii ma aha inuu iibiyo alaab dhacday ma aha inuu iibiyo alaab uu been abuuray oo yidhaahdo ingiriiskaa lagu soo sameeyey daawada tan intuu meelo heer ku soo miiso oo meel kale ka keeno ma aha taajirka muslimkii inuu miisaanka khiyaameeyo mikyaalka tujaar waaweyn baan maqlayay oo la yidhi 10 kun oo tan buu dalbanayaa halkii 50 kiilo lagu shubi jiray buu odhanaya 49 ama 49.5 ku shub dee malaayiin min alkiilooyaad baa uga soo baxaya ilaan waxaan u gadaya wax tiro badan dadkuna jawaanka intay qaadaan saari maayaan miisaanka oo eegi maayaan inuu 50 kiilo iyo ama 25 kiilo inuu yahay haddii jawaan walba waxoogaa laga tuuro ama kuwan dawada keena haddaad dawadii 10 garaam la rabay inay ku jirtaba aad 5 garaam ku gurto 5 ka tuurto dushana 10 kaga soo qorto inay 10 garaam oo antibiyootiga noocaasi uu ku jiro waxaasoo dhami waa talaacub walaa tabkhasu nnaasa ashyaahum tibay soo hoosgelayaan awfu lkayla walmiisaanki weylun lilmutafifiin kaad hoosgelaysaa kuwii ilaahay lahaa weylun lilmutafifiin aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun waida kaaluuhum aw wasanuuhum yukhsiruun alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuhuuna liyowmin cadiim yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin hog wuxuu u sugnaaday baa ilahay yidhi kuwa wax khafiifiya miyaanay kuwaasi u malaynayn baa ilaahay leeyay maalin weyn inay rabbigood is hortaagi doonaan ama badaaca radii'ah badaaca liidata inaad ku iibiso calaama tijaariya kaloo aanay lahayn oo dadku wax ku iibsado jayida ama mawaadda bini aadamka caafimaadkooda waxyeelaysa ama dhibta u geysanaysa inaad iibiso ama waxyaabo najaasaad iyo qurun lagu soo daray inaad iibiso waxaasoo dhammi waa anwaac qish ka mid a waxaasoo dhan ma soo koobi karno laakiin waxaynu leenahay qofka muslimka ahi waa qof makaarimul akhlaaq dhammaanteed leh oo qofka naadimka ah qofka tijaarada ka xumaato hadduu yidhaha kontaraaga iga jebi ka jebin kara hadduu u baahan yahay kaalmayn kara walaalkiisa kale taajirka aan kicinaynin ama xaasidaynin inta badan tijaaradu waa xasad miidhan oo dadka tujaarta alla isma tuso badeeca ku eriya kan ku eriya waxaasina diin maaha dadka muslimiinta inay isu daceeyaan oo wada wanaagsanaadaan furaska idinkaa iga badiya marka laakiin anigu maxaadiirtaan idiin badiyey qoladiina tujaarta ee baac mushtar ku jirta suuqa iyo furaska yaalla wax badan cidi idinka warrami maysaan u malaynaya idinkaa yaqaana laakiin warkan oo dhammi wuxuu ku soo koobmayaa haddaad laba hal isla hesho wax waad saxan kartaa haddaad aqoon waa wax yar aqoonta koors yaroo 3 cashaad qaadatabaad inta aad u baahantahay hore kaga dhammaanaysaa wixii ka dambeeyana nin caalimo muslimo umaad weydiinaysaa tujaartoo dhammi soo loo yar ma leh taajir aan loo yar lahayn miyaynu leenahay tujaarta waaweyn inta badan nin waliba loo yar buu leeyahy kontragyada ka eega oo u saxeexa oo u diro oo waxa kanu sameeya si aan qaanuunka loogu qaldin dee faqiihna lahaw kuwa eega waxa kan inuu xalaal yahay iyo inuu xaaraan yahay sharciga gaalkaba waad u eegaysaa iyo maxadka muslimka ugu eegi weydi ila loo yarkaan sharci gaaleedku ku eegaya inay waxaan waafaqsan yihiin kale
ka muslimkiina wuxuu ku eegayaa ka islaamka inay waafaqsantahay in kale marka waxaan leenahay haddaad laba hal oo qura hesho waxaan sheegay oo dhan waa challenges aad ka talaabi karto insha allahu tacaala ka koowaad waa aqoon inaad beec iyo shiraaga iyo axkaamul mucaamalaat wax ka baratid yeelatidna faqiiha muslimka ah ee aad su-aalahaaga weydiiso wixii kaa ishkaal gala ka labaadna waa inaad alla ka cabsi yeelato alla ka cabsi inaad yeelato oo alla ka cabsigaasi wuxuu kaa celinayaa xaaraanta dee adoo garanaya markaa inaanad ku dhicin ama khiyaamo samaynin ama been sheegin iyo wixii la mid ah dee mowduucii lay dhiibay inahaasay iigu muuqatay haddii aan gartayna dee allah idinku anfaco haddii kalena sheikha idin dib u weydiin doontaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته